بسم الله الرحمن الرحيم muuqaalkan waxaan idinkula wadaagayaa insha Allah qaabkee markii uu cuslaado kombiyuutarkaaga culayska qaabkee looga yareeyaa saan ognahay markii howlo badan lagu qabto kombiyuutarka uusan antivirusna kuugu jirin internetna uu ku xiran yahay waxaa soo wajaho mararka qaar inuu muxuu ahaa aad u wareegsado aad kaaga cuslaado marka maxaa sameynaysaa marka hore waxaad ka nadiifinaysaa horta viruska soo raacay internetka ayaa ka nadiifinaysaa midda labaad waxaad samayn doontaa insha Allah antiviruskana inaad u dirto oo aad update iyo scan aad u dirto mid saddexaadna waxaad samayn doontaa defragment iyo disk clean up ayaa samaynaysaa haddii aan mid aan ugu hormaro stepka koowaad waxaan ku dhahay viruska ka soo raacay internetka sidee loo nadiifiyaa ama loo tirtiraa window key plus r ayaa taabanaysaa markaad taabato halkaas meesha waxaad ku qori doontaa percentage temp percentage oo laga soo gaabiyo temporary kadibna waxaad dhihi doontaa okay meeshaan saa ujeed waxaa soo galo any antiviruska oo kaa soo raaca internetka iyo wasakh dhan intii ayay ku jiraan inta kulley haddii inta xabo aniga meeshida ku jiraan waa intaas meesha sida kaaga muuqato 88 xabo waaye adiga waxa laga yaabaa in 200 oo gaarto kumanaan oo gaaro kombiyuutarkaaga oo yahay culayska sababta uu noqdo kombiyuutarkaaga culays meeshan qayb ay ka qaadataa marka control ayaa leedahay shift ayaad qabanaysaa dilad waa dhigi karaa aan qaban shift waay maxaan u riixayaa shift riix waxaan ku leeyahay waxa waaye waxaan ka wadaa inaysan recycle bin ka aadin ayaan ugu talagalay marka shift qabo delete ayaad leedahay oo keyboardka ama shift adoo haya right click leedahay delete aad leedahay kadib shiftiga waad kici doontaa yes dheh boqolkiiba macnaha uma nadiifin doono wax boo soo reebi doonaa intaasna waa ka socon doontaa wuxuu soo reebo waa iska caadi laakiin mostly kuwa ugu adag uguna waaweyn uguna culus waa nadiifin doonaa hadda stepkan waa step 1 hadda aan marnay stepka xiga waa maxay waxaan samayn doonaa defragment iyo disk clean up inaan hadiskaha ama storagekeena ama hadiskaheena oo ku jiro windowga ama sida aan ku sameyno defragment sida meesha qoranta local disk C oo ay calaamadda windowga saaranta right click ayaad leedahay properties ayaad dooranaysaa kadibna tools ayaad imaanaysaa waa labadan inta waa disk clean up meeshaan waxaa loo yaqaanaa defragment labadan meel ayaad galaysaa haddana jag aad leedahay scan ayaad dooranaysaa waa sugaysaa ilaa uu ka dhammaynayo waxay ka qayb qaadanaya ama ay samayn doontaa insha Allahu faylasha isku dhex yaacsan ama culayska jira ayay wax badan ka qayb qaadanaysaa inuu yaraado culayska haysta kombiyuutarkaaga okay soo ujeedo meeshaan waqti badan ayay qaadan doontaa marka qaadada muxuu yiri your drive was successfully scanned waa lagu sameeyay scan haddana waxaa u diraysaa defragment qaybta kale meeshaan waxaa leedahay analyze hadiskaha waaye aad dooranaysaa meeshaan hadiskaha ay ku qoran tahay meesha markuu asna 100 geeyo waxaad dhihi doontaa haddana markii hadda waxaan galay qaybtan loo yaqaano analyze-ka anoo sida doortay haddana waxaa leedahay optimize ayaa leedahay waa step 2 xoogaa culays badan ayuu yareyn doonaa boqolkiiba boqol waa kasaasna waa dhameeyey
waa iska xiri doontaa okay aan leenahay. Step 2 meeshaan uga baxanay kadib waxaa soo kicinaysaa antiviruska. Antivirus ayaad soo kicinaysaa. Okay, antivirus waa kan oo soo kacaysa. Markuu soo kaco antiviruska sida saxda ah oo looga baahan yahay waa inay buluugdan aan dhahay muxuu ahaa green kan calaamadan green ka ah cagaarkan tig ee saaranta waa inay ku soo baxdo. Haddii gudud uu saaran yahay calaamada x kan uu saaran yahay risk ayaa jira iyo virus badan ay jiraan. Marka hore waxaad u diraysaa antiviruska update aad leedahay. markuu dhameeyay haddana soo ujeedo waa dhameeyay update-ka kadibna scan ayaad imaanaysaa. Last waa meeshii ugu dambeysay markaad imaado full scan u dir waxa la run quick scan iyo run dheh. labadan shaqo markuu dhameeyo oo ay labadan meel ay dhamaato xisaabintan uu wado ay dhamaadaan computerkaagana aad dimiso daarto insha Allah 100% culayskii hayo waa ka degi doonaa. Tijaabi haddii aad isku aragto culays noocaas oo kale ah.